بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة الكسور دوادا برامج كارمها سياسة ورقات قضبات أتكون دعوة دونتانا وحاكمدا باريتانا كسعودة حرونتا مدحتويدا في الصوماليا كدب تجنينا أمني أولوجي دي مرايكنكا أو سياسة عصب ودجي قرشيسة الصوماليا يسافر كدالكاس أو شيء إن إسلامي دولة معاملان مدحت الدولة الفدرالية الصومالية يكون معمول قبلية وأيكمتها الصوماليلان sidoo kale barnaamijka arrimaha siyaasadda waxaad ku daawan doontaan imaaraadka carabta oo shaaciyay dalalkii ugu badnaa oo maal gashtay iyo maamulka dhisan Soomaaliya oo lacag badan ku bixiyay Soomaalida ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo si weyn uga walaacsan go'aan dhawaan ka soo baxay dawladda Kenya fila Soomaaliya oo xilka qaadis la damacsan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Yiliso iyo siyaasiyiin oo xusul duubaya sidoo kale barnaamijka arrimaha siyaasadda qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah xiisad ka taagan Garbaharey iyo wasiiro ka tirsan Jubbaland oo loo jeediyay in halkaas ay isaga baxaan madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobena waxa lagu eedeeyay in uu doonayo muddo kororsi xilli ay soo dhowdahay muddadii xilhaynta ee maamulkaas qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka arrimaha siyaasadda ee warqad markale kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal aynu ku bilaabay xarunta madaxtooyada filla Soomaaliya waxa laga bilaabay baaritaan culus kadib markii ay soo baxeen digniino culus oo la xiriira amniga baaritaanna amni ayaa ka socda madaxtooyada Soomaaliya iyo dhismayaasha ku dhex yaala xeyndaabka madaxtooyada oo ay ku jiraan wasaarado iyo xarumaha ciidamada kadib digniin amni oo la sheegay in la helay baaritaanka ayaa waxa wada ciidamada booliiska gaarka oo adeegsanaya eeyo waxaana la baarayaa dhammaan xafiisyada xarumaha ku dhex yaala madaxtooyada Soomaaliya iyo dadka ka howlgala iyadoo maanta baaritaanku saameeyay wasaaradda warfaafinta xarunta TV-ga iyo raadiyaha dawladda ay ku howlgalaan baaritaanka oo ka soo bilowday madaxtooyada ayaa sidoo kale lagu sameeyay xarunta taliska booliiska waxaana la sheegay inuu sii socon doono iyadoo warar kala duwan ay ka soo baxayaan sababta keentay baaritaankan kadib markii digniin amni laga helay hay'adaha amniga waxaana amar ku bixiyay agaasimaha cusub ee madaxtooyada Aamino Saciid Cali shaqaalaha iyo mas'uuliyiinta la baaray ayaa cabasho ka muujiyay eeyaha loo adeegsanayo baaritaanka oo Soomaalida aysan jeclayn dawladda Mareykanka ayaa siyaasad cusub u dejisay qorshaheeda Soomaaliya xilli safiirka dalkaas u fadhiya Soomaaliyana uu sheegay in si islaamida ay ula macaamilaan madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada Cabdullaahi Axmed Nuur ayaa faafahinaya dawladda waddanka Mareykanka ayaa waxay dadaal xoogan ugu jirtaa sidii ay u kordhin lahayd howlgalka military ee ka sameynaysa gudaha Soomaaliya iyadoo sheegtay inay diyaar u tahay inay taageerto ciidamada xoogga Soomaaliya si looga awood roonaado kooxda shabaab afayeen u hadlay aqalka Pentagon-ka waddanka Mareykanka ayaa sheegay in ciidamadooda ku sugan Soomaaliya ay kordhi doonaan howlgallada ka dhanka kooxda shabaab iyo sidoo kale in la taageero ciidamada militariga Soomaaliya sidii dibdhis loogu sameyn lahaa si ay mustaqbalka awood ugu yeeshaan inay hataan ammaanka Soomaaliya Mareykanka ayaa waxa uu sheegay inuu ka walwalsan yahay kooxda al-shabaab oo sanadihii la soo dhaafay weerar xoogan ka geysanayay gudaha Soomaaliya kuwaas oo laga cabsi qabo in sidoo kale ay xira ciidamo loogu tababaro al-qaacida ay ka dhiseen gudaha Soomaaliya inkastoo Soomaaliya ay ka mid tahay todobadii wadan ee uu madaxweynaha waddanka Mareykanka xayiraad ugu soo rogay inay galaan gudaha waddanka Mareykanka haddana Mareykanka ayaa doonaya in uu saameyn military ku yeesho gobolka Geeska Afrika dhaca aragtida cusub ee waddanka Mareykanka uu doonayo in uu ku eego Soomaaliya ayaa waxay tahay mid baahi weyn ee Mareykanka ugu qabaan in la weeqo kooxda al-shabaab iyo in sidoo kale saldhigooda military ee Soomaaliya ku yaala uu noqdo mid si weyn u howlgala Wild Hauser oo ah afayeenka aqalka Pentagon-ka waddanka Mareykanka ayaa sidoo kale diiday inuu bixiyo faahfaahinta fursado cusub oo xilligan ay dawladda waddanka Mareykanka ay doonayso sida uu sheegayo ama bay sheegayso wakaaladda wararka AP laakiin saraakiil kale oo Mareykan ayaa sheegay in dawladda waddanka Mareykanka ay doonayso inay kala kaashato ciidamada qaranka Soomaaliya sidii loo weeqi lahaa awoodda kooxda shabaab xogayaha difaaca ee waddanka Mareykanka ayaana horey u sheegay in ciidamadooda ku sugan gudaha dalka Soomaaliya ay sii laba jibaari doonaan howlgallada ay wadaan madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa arbacadii la soo dhaafay waxa uu ka dhigay in ay 20 sano oo kale ay qaadi doonto ama ay 20 sano oo dheeraada ay qaadan doonto dib u hagaajinta dalkiisa madaxweynaha oo sidoo kale haysta dhalashada waddanka Mareykanka
kuna guuleystay doorashadii ugu dambeysay ayaa waxa uu marar badan sheegay in ay dadaal ugu jiraan sidii dib loogu soo celin lahaa nabadgelyada Soomaaliya. Donald Yamato oo ah safiirka uu madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump u magacaabay Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu Washington ka sheegay in xal ciidan aan sidoo kale lagu xalin karin dhibaatada dhinaca amniga ee ka taagan Soomaaliya. dhinaca kale waxa uu ka hadlay weeraradii ugu dambeeyay ay ciidamada Mareykanka ay geysteen iyo sababta keentay in safaaradda amaba shaqaalaha waddanka Mareykanka ee ka soo jeeda aysan ugu howlgelin magaalada Muqdisho. dhinaca kale safiirka dowladda Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya Donald Yamato ayaa qirtay in ay si isku mid ah ula socdaan xaaladda dhammaan maamul goboleedyada dalka oo ay ku jiraan Somaliland iyo sidoo kale Puntland oo uu tilmaamay in 6 maamul goboleed ee Soomaaliya ka jirta iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya uu midba doonayo in si gooni ah loola macaamilo. waraysigii uu bixiyay Donald Yamato ayaa sidoo kale waxa uu kaga hadlay xaaladii ugu dambeysay ee Soomaaliya. We're very hopeful that we'll go in directly into Mogadishu. Waxa waxtar weyn leh in aan toos u galno Muqdisho. Waxa kale oo wax laga weydiiyay ergeyga Mareykanka caqabadaha haysta ergada Mareykanka oo aanan haysan kuwa wadamada kale qaarkood. Caqabadahaas oo ay ka mid tahay inay ka shaqeeyaan xarun ciidan oo ku taala magaalada Muqdisho iyo suurtagalnimadeeda inay arintaasi wax iska bedeli karaan iyo in kale. isaga oo ka jawaabayana waxa uu yiri. First time there in 2016 we were able to get out to the outskirts of Somalia, and we hope to continue to do that because we need to engage the 6 regional leaders and also to help coordination with the regional leaders and the federal government. And at this point we can get out. waxaan rajaynayaa in hawshaasi ay sii socoto sababtoo ah waa inaynu la shaqeyno 6 madaxweyne ee maamul goboleedyada iyo in aan gacan ka geysano wada shaqeynta dowladda federaaliga ah iyo madaxda maamul goboleedyada. waqtigan xaadirka ah uma safri karno meel Muqdisho ka baxsan. safaaradda Muqdisho dhexdeeda ayaa caqabad ah, khatar iyo culays, balse xaruntan aan ku shaqeyno ayaanu ka fiirinaynaa fursadaha aan haysano. hadba sida amniga uu suurtagalayo ayaan u qaadanaynaa. Senator Jeff Merkley oo xiganayay wargeyska New York Times ayaa sheegay inaysan cudud ciidan oo kaliya xalin karin kala qaybsanaanta bulshada Soomaaliyeed. waxa uuna weydiiyay ergeyga Donald Yamamoto inayba jirto qorshe ciidan oo loogu talagalay in lagu xaliyo colaadda iyo kala qaybsanaanta Soomaalida. In my previous role as the acting assistant secretary, we've held lengthy discussions not only with General Waltholzer, the commander, the COCOM commander for Africa Command, but also with other commanders from SOCOM and other waxaan wada hadal dheer la yeelanay madaxda Africom, General Walter House iyo saraakiil kale. xaaladdu waxa ay tahay wax xal ciidan ah Soomaaliya loo hayo ma jirto. dabcan AMISOM waa ku guuleysatay inay xakamayso jabhadaha iyo Al-Shabaab, laakiin jawaabta saxda ah waa inay jirtaa qorshe ay leedahay dowladda oo dhan. micnuhu waxa uu yahay waa inuu jiraa hay'ado dawli oo dimuqraadi oo dadweynuhuna ay la xisaabtamaan. ergeyga Mareykanka u magacaabay Soomaaliya Donald Yamamoto ayaa wax laga weydiiyay nabadguurka ay dhuxusha ku hayso Soomaaliya, waxaana uu sheegay inay wada shaqeyn la sameeyeen dowladda Soomaaliya, qaramada midoobay iyo dowladda deegaanka ah si loo yareeyo dhibaatada xoogan ee gubista dhirta iyo dhuxusha laga sameynayo ay ku hayso dadka iyo dalka Soomaaliya. xarunta madaxtooyada Soomaaliya ayaa qorsheynaysa inay xilka ka qaado gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Yariisow, iyadoona siyaasiyiin kala duwan ay arintaas si dadaal ugu jiraan sidii xilkaas u qaban lahaayeen. waa kan Daahir Faarax Axmed oo faahfaahinaya. warar lagu kalsoon yahay oo aan ka helayno madaxtooyada Soomaaliya waxa ay sheegayaan inuu socdo qorshe xilka looga qaaday gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Yariisow. wararku waxay intaas ku darayaan in gudoomiyaha gobolka Banaadir oo hadda safar shaqo uga maqan dalka Imaaraadka oo way doono xilka gudoomiyaha, waxaana jira warar hoose oo sheegaya in lagu cadaadinayo inuu iscasilo. qorshaha ka socda madaxtooyada Soomaaliya waxa lagu sheegay in xilkaasi loo magacaabi doono wasiirka amniga xukuumadda ra'iisul wasaare Kheyre Axmed Abuukar Ducaale Islow. wasiir Ducaale oo ay aad isugu dhow yihiin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa isna waay doona kursiga xukuumadda, inkastoo ay jiraan shakhsiyaad kale oo la tuhmayo in xilkan ay isku soo taagi doonaan. shakhsiyaadka la hadal hayo inay isku soo taagi doonaan qabashada xilka gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaa ka mid ah
maareeyihii hay-adda duulista iyo saadaasha hawada dowladda Soomaaliya Yuusuf Cabdi Cabdullo oo isaga dhowaan shaqada laga fariisiyey gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Yariisow ayaa markiisii hore xilka loogu magacaabay si kidisa kadib markii maare loo waayay gudoomiyihii xilka baneeyay Taabit Cabdi oo waday qorshe siiskiisa uu isugu dooro lahaa sidoo kale qorshahan xilka qaadista oo hadda hadalhayntii si weyn uga socoto magaalada Muqdisho ayaa imaanaya xilli dowladda Soomaaliya ay weli ku guda jirto isbeddel lagu sameeyo madaxda xilalka hayso kuwa kalena ay ku imaanayaan macadda dhaqangalka qorshahani ha yeeshee waxaa si xowliya magaalada Muqdisho uga socda hadalhayntiisa inkastoo xilliyo hore ay soo baxeen warar ku aadan in xilka uu waay doono gudoomiye Yariisow oo markiisii hore si aan ka tashi badan lahayn lagu magacaabay sida dadka qaar ay qabaan dalka Istaga Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu shaaciyay dalalkii ugu badnaa oo maalgashi sanadkii tagay ee 2017 iyadoona maamul ka jira Soomaaliya oo ku maalgeliyay lacag fara badan qoraal ay baahisay dowladda Imaaraadka Carabta ayaa waxa lagu soo bandhigay wadamada ugu badan oo ay maalgashteen sanadkii tagay ee 2017 dowladda Imaaraadka ayaa qoraalkeeda ku sheegtay inay maalgashi weyn ku sameysteen wadamada Sacuudiga, Canada iyo dalka Hindiya oo lagu qaraj gareeyay dhaqaalaha ugu badan oo ay bixiso Imaaraadka qoraalka oo si gaar ah uga soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Imaaraadka Carabta ayaa lagu sheegay in wadanka koowaad ee la maalgashtay uu yahay Sacuudiga halka wadamada Canada iyo Hindiya ay galeen kaalmaha labaad iyo saddexaad kaalinta afraad ee maalgashiga ayaa lagu sheegay inay gashay Somaliland oo laga maalgeliyay dhinacyada dekedda iyo ganacsiga furan oo ay leeyihiin Imaaraadka sida dhoofinta xoolaha nool kaalinta shanaad waxaa la sheegay inay gashay Masar oo laga maalgeliyay dhanka ganacsiga sida lagu xusay qoraalka ka soo baxay wasaaradda waxaa lagu sheegay qoraalka in maalgashi xaddigiisu gaarayo eber 86 bilyan ay geliyeen maamulka Somaliland halka eber 36 bilyan ay geliyeen dalka Masar inkastoo la saadaalinayo in sanadaha soo socda uu kordho maalgashiga Imaaraadka Carabta ay gelinayaan Somaliland iyo Masar warbixinta wasaaradda arrimaha dibadda Imaaraadka laguma sheegin meelaha hantida maalgashigooda Somaliland ku baxday balse waxaa la ogsoon yahay in maalgashiga ugu badan lagu sameeyay horumarinta dekedaha dhismayaasha macdanta tamarta la cusboonaysiiyay arrimaha ganacsiga iyo dhinacyo kale geesta kale dowladda Imaaraadka ayaa xustay in sanadka lagu guda jiro ee 2018 dhinaca kalena dowladda Imaaraadka ayaa xustay in sanadkan lagu guda jiro ee 2018 ay kordhin doonaan maalgashiga ay ku sameysan doonaan goobo kale oo ay ka mid tahay Soomaaliya ayna ku bixi doonaan hantida ugu badan magaalada Galbaharey ee gobolka Gedo waxaa ka jira xiisad looga soo horjeedo maamulka Jubbaland iyadoona wasiir ka tirsan maamulkaas loo jeediyay inay si degdeg ah uga baxaan magaalada waa kan Daahir Faarax Axmed oo markale faafahinaya wararka laga helayo gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya waxa ay sheegayaan in xiisad kacsanaan halkaas ay ka taagan tahay kadib markii shalay gaareen magaalada wasiir ka tirsan maamulka Jubbaland dibadbaxyo rabshado watan halkaas ay ka dhaceen waxaa la soo warinayaa in magaalada ay ka socdaan diyaar garow ku aadan barnaamijyo kale oo looga soo horjeedo wasiirada jooga waxaana xalay magaalada ka dhacay kulan ay qaateen odayaasha dhaqanka iyo wasiirada shalay magaaladaas gaaraha yeeshee odayaashu waxay wasiirada ku amreen inay isaga baxaan magaalada si dhibaatooyinku aysan u sii badan dibadbaxyadii shalay ka dhacay Galbaharey waxaa la tilmaamay inuu ku dhaawacmay wasiirka qorsheynta maamulka Jubbaland Axmed Ibraahim oo aadan wili waxaa la soo sheegayaa in degmada ay ka taagan yihiin xiisado iyo is-abaabul bulshada ay wadaan waxaana si weyn looga soo horjeedaa joogitaanka wasiirada ka tirsan maamulka Axmed Madoobe dhinaca kale gudoomiyaha degmadaas oo raacsan maamulka Jubbaland ayaa amray in la damiyo isgaarsiinta magaalada taas oo keentay in dadku ay iswici waayaan ama wada xiriiri waayaan waxaana ay sii kordhisay cabsida laga qabo dibadbaxyo xooggan oo ka dhaca magaaladaas Axmed Madoobe ayaa dhankiisa qorsheynaya magaalada Galbaharey inuu u diro ku-xigeenkiisa Maxamuud Sayd Aadan si uu u dejiyo xiisadaha ka taagan halkaas waxaana dadka reer Gedo si weyn uga soo horjeedaan maamulka Axmed Madoobe qaybihii dambe ee barnaamijka ayaynu soo gaarnay hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobena waxaa lagu eedeeyay inuu doonayo muddo kororsi balse markana Soomaalida ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa waxa ay si weyn uga walaacsan tahay go'aan dhawaan ka soo baxay dowladda Kenya dowladda Kenya ayaa maalmo ka hor ku dhawaaqday howlgal xoogan kaas oo lagu qabanayo dadka aan sharciga lahayn si loo masaafuriyo
waxaana go'aankaasi ka walacsan Soomaalida ku nool magaalada Nairobi. Wasiirka arrimaha gudaha dalka Kenya Mr. Mataigi ayaa sheegay in howlgalku uu qaadan doono muddo 3 bilood ah isla markaana cid waliba oo sharci darro ku joogta dalka Kenya lama saafurin doono. qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan Islii ayaa isla dhex maraya sida uu noqon doono howlgalka ka dhanka ah dadka aan u dhalan Kenya ee ku nool magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya iyo sida uu u saameyn doono. Soomaalida qaarkood ayaa xusuusta saameyntii uu ku yeeshay howlgalkii Islii lagu fuliyay sanadkii 2014 kaas oo lagu masaafuriyay Soomaali fara badan oo muddo ku noolaa dalkaasi. dhowaan ayaa sidoo kale ciidamada booliiska Kenya waxay qabqabteen tiro muwaadiniin u dhashay dalka Nigeria kuwaas oo lagu eedeeyay in dalkaasi ay soo geliyeen muqaadaraad. madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa lagu eedeeyay inuu doonayo muddo kororsi xilli ay dhowdahay waqtigii loogu talagalay inuu hayo xilka madaxweynaha maamulkaas. waa kan Daahir Farax oo soo koobaya. tuhun badan ayaa ka jira qabsoomidda doorasho madax bannaan oo ka dhacda deegaanada maamulka Jubbaland oo hadda madaxweynuhu ka yahay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo dadka qaar ay qabaan in caburin uu ku hayo bulshada ku nool halkaasi. afayeenka hore ee maamulka Axmed Madoobe Cabdinaasir Seeraar ayaa sheegay ama ku eedeeyay maamulka hogaamiye Axmed Madoobe inuu wada caburin iyo dhibaatooyin uu u geysanayo dadka ku nool magaalada Kismaayo iyo deegaanada kale ee Jubbaland ee maamulkaasi uu joogo. Cabdinaasir Seeraar ayaa sheegay inuu mugdi galay hamigii ay hiigsanayeen dadka reer Jubbaland isagoo xusay in sharciga uu ku dhisnaa Jubbaland la hareer maray. waxa uu tilmaamay in tuhun badan ka qabaan muddo kororsi ay sameeyaan maamulka hogaamiye Axmed Madoobe waxaana uu cadeeyay in aan weli la ogeyn xilliga la qabanayo doorashooyinka iyo sharciyada lagu dhisayo guddiga qaban doona. Cabdinaasir Seeraar oo ka mid ahaa xubnihii la soo jabhaday Axmed Madoobe isla markaana aad ugu dhawaa ayaa hadda banaanka ka ah maamulka hogaamiye Axmed Madoobe kadib markii ay iskhilaafeen. maamulka Jubbaland waxa ku soo fool doorashooyin la filay in sanadkan ay dhacaan ha yeeshee dadka qaar waxay cabsi badan ka qabaan in doorashooyinkaasi aysan qabsoomi doonin Axmed Madoobena muddo kororsi uu sameey doono. guud ahaan intaas aynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka arrimaha siyaasadda warqaad intaynu barnaamijkan mid lamid aynu ku kulmayno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. kusoo dhawow warqaad press haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan like siina share garee. haddii aad nagu cusub tahayna subscribe si aad u hesho muuqaalo cusub. fikirkaadana noogu soo gudbi qaybta commentiga. aad baad u mahadsantahay.